arrintan ciidiid iyo niman kala isku dayay in ay sameeyaan waxaa la dhaho irir Soomaaliysiga sanado hore ka hor laakiin way suurtageli weyday qorshaha waxay tahay sida uu u wado ninkan la yiraahdo magaciisa Ismaaciil Umar Geelle in madaxweynaha laga dhigo nin hawiya oo Muqdisho ka soo joodo ra'iisul wasaarahana laga dhigo nin gobolada waqooyi ka soo joodo xaqiiqda in laga hadlo waa arrintaas hadda ka hor baa la sameeyay wayna suurtageli weyday xasan sheekh isagoo og arrintan in la isaga daba imaanayo xaaladdu ay cuslaanayso oo Daaro Ismaaciil ay leeyihiin khubaro waaweyn oo siyaasiyiin oo ay leeyihiin deegaano waaweyn oo ilaahay kuma daraado culus oo dhinac walba ka culus soo og yaa wuxuu isticmaalay xamso si uu u saxiixo berina uu u dhaho arrintan xamso iyo aniga dad baa ii keenay يا حمسي أحمد مدوبة إيه كان إيو عرنت أنا نيجا شغلكم ملاهين مسعودة وهجك بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لا صوم الله من الوجوكتان وإحنا دلنا وقتها هيدين وعنا ضوء هدي أي تامر كي كوجو ريسو نصوب وقنا سو حنسي ولا التنمله كقعد سنة إن الفيديو قناه لايك ريسو سي ميل ليرو جارو channel كنا أتوصل بيشتو هذا كم إذا سحبتي هره وأكيد أن كرمنا إن فيديو لايك ريسو أصحبت هذا اللي وذاكتو برنامج كان أتكوب شاح وشبطو بجيستنا وحن كهذليو سيدا أدوكتين مان تيدولة الصومالية مدحونها الصومالية هي وجامينيو أو مقالة مقدسة سيدا وحي ومقعدرين shirka qaran waxaa la soo saaray qodobo dadku dhigaha ay farta gashteen qodobo samaynayo baabi'inayo wax la dhaho Soomaalinimada qodobo ka soo horjoodo baabi'iyena dastuurkii Soomaalida ay isku haysatay Soomaalidu waxa state-ka loo sameeyay waxay tahay dadku waxba isku hayay Soomaalidu waa qabiilo kala duwan waa dad la isku keenay oo la yiri war dastuurkaas ku dhaqma xasan sheekh maanta wuxuu qaatay go'aan ah dastuurkii oo idil ayuu qadka ka saaray wuxuu qadka ka saaray baarlamaanka Soomaaliya waxa la sameeyay arrin dadku Soomaalida ay ilaa hadda ay madaxa la qabsadeen waxaan ognahay dowladii Maxamed Siyaad Barre uu hogaaminayay Allah u naxariistay markay dalku la wareegtay sanadii 1969 oo ahaa inqilaabkii aan ku dhicin dhiiga waxaa xilligaasi jiray wax la dhaho madaxweyne iyo ku xigeen macnuhu maxay tahay madaxweynaha ayaa awood iskale ku xigeen wax la dhahana ma bajiro tusaale haddaan soo qaadano dalka Andriska nahay ee Ethiopia waxa uu leeyahay ra'iisul wasaaraha waa active awood buu leeyahay madaxweynahana waa uu jiraa laakiin awood ma leh haddaan soo qaadano dalka UK wuxuu leeyahay ra'iisul wasaare awood badan madaxweynena waa uu leeyahay waxa jiro dalal fara badan oo madaxweyne ku xigeen ku leh haddaan tusaale soo qaadano dalka Kenya oo asna dariska nahay wuxuu leeyahay madaxweyne ku xigeen macnaha waxay tahay madaxweynaha markuu maqan yahay ama uu xanuunsan yahay bas uu wax qabtaa awood ma lahan looma daba fariisto as macnaha go'aano masiiri ana ma qaadan karaayo waxaan rabaa markii aan ka hadalno qodobada Maxamed madaxweynaha Soomaaliya uu go'aan ku soo qaatay كو مدحوينها وحو سميي أما بقوا ماشى الله صهور مع ذلك كستو أساق الصحيحي وصنعين إن مدحوينه كحجين الله سميه رئيس الوزراء هنا لقى قاضي مهمة ده هالكاس إلا ده وحيتا إن رئيس الوزراء أودي سا الله دمو وقالك كوجيدي أساق أنا معهن قالك وعا كوجيدي ونيلي ده هذا حمسو ومتليه باش دارات وحكلو لسمي وكلو وماشى كحسي in xilligeeda markii la gaaro asaga inuu sanad loogu darayo macnaha 5 sano sanadka hadda la soo dhaafay ee diyaaradaha iyo waqtiga uu ku dhamaaday in meesha aan laga soo qaadayni 4 sano kale ay u hartay macnaheedu waxay tahay sanad loogu daray 5 sano inuu ku qabto golo deegaan oo hal deegaan Jubbaland laga soo doorto magaalada Kismaayo Puntland laga soo doorto dadka jooga bas garowga in loo qabto doorasho Jowhar bas laga qabto doorasho dhuusamareeb bas laga qabto doorasho qaab noocaasa buu madaxweynaha Soomaaliya intuu meel fariistay loo soo xariiqaya oo xariiqayo waa Ismaaciil Umar Geelle waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah Soomaalidu way isku timid Soomaaliya ma heshiin 91 markii dagaaladii ogeyd ka dhacay waxay heshiis la dheemi jireen Soomaalidu ma haysato heshiis rasmi ah waxa la isku heshiisiinay isku joogay waa dastuurka tusaale maanta hadii uu madaxweynaha doonayo inuu wax bedelo waxa jiro hanaan sharci كو أرنتان وإن بروبوسال لسمايو
waa in la geeyo baarlamaanka Soomaaliya. Baarlamaanku waa inay ka doodaan arrintaas. baarlamaanka markay ka doodaan waa in baarlamaanka oo ah golaha sharci dejinta inay arrintaas meel mariyaan. markay arrintaas meel mariyaan bay madaxweynaha u tagaysaa oo saxiix loo baahan yahay. waa qofka haddii waddanku uu doonayo madaxweynaha inuu wax ka bedelo qaab hanaan dastuur baa jiro. meesha waxa ka cad wax dastuur la dhaho ma jiro. labo ma jiro wax la dhaho baarlamaan. dastuurkana hadda qof inuu wax ka bedela shakhsi ah I don't think in Soomaali ay isku keenayso. waxyaabaha kale oo la yaabka badan baa waxay tahay in la samaynayo ra'iisul wasaaraha asagaa saxiixay. ra'iisul wasaaraha saxiixiisa lagu qoray barnaamijkaana ra'iisul wasaaraha saxiixay. waxaa kaloo meesha joogay oo marqaati ahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe asaga qoondadii reerkiisa ay ku lahayd iyo Xamse qoondadii ay dowladda Soomaaliya ku lahaayeen waxay dhaafsadeen. horta Xamse ma laga hadli karo. Axmed Madoobe wuxuu dhaafsaday dhowrka bilood ee loogu daray asaga sharciyan wuxuu dhaafsaday ama maxaa la jiray indhaha isaga tiray qoondadii asaga beesha uu ka dhashay ee daarood ay lahaan lahayd. arrintan ciidiid iyo niman kala isku dayay in ay sameeyaan waxaa la dhaho irir Soomaaliysiga sanado hore ka hor laakiin way suurtageli weyday. qorshaha waxay tahay sida uu u wado ninkan la yiraahdo magaciisa Ismaaciil Umar Geelle in madaxweynaha laga dhigo nin hawiya oo Muqdisho ka soo joodo. ra'iisul wasaarahana laga dhigo nin gobolada waqooyi ka soo joodo. wasiirka ama maxaa la jiray adiga waxbana aan la siinin ciidaha Xamse Daro Ismaaciil uu matalo. xaqiiqda in laga hadlo waa arrintaas hadda ka hor baa la sameeyay wayna suurtageli weyday. xasan sheekh isagoo og arrintan in la isaga daba imaanayo xaaladdu ay cuslaanayso oo Daro Ismaaciil ay leeyihiin khubaro waaweyn oo siyaasiyiin oo ay leeyihiin deegaano waaweyn oo ilaahay kuma daraaday culus oo dhinac walba ka culus soo og yaa wuxuu isticmaalay Xamso si uu u saxiixo berina uu dhaho arrintan Xamso iyo aniga dad baa ii keenay iyo Xamse Axmed Madoobe ii keenay iyo arrintan aniga shaqo kuma lahayn. xasan sheekh already wuxuu ka sii fikiray consequence-ga ama caqabada ka dhalan doonta meeshaas laakiin faraha in laga qaado. waxaa kale uu meesha ka saaray xasan sheekh maxamuud uusan ilaa hadda inkirsaneen ilaa hadda inkirsan yahay doorashada Puntland ka dhacday ilaa iyo hadda ma aaminsano. doorashada Puntland ka socoto waxaad u malaysaaba Puntland in yacni aysan Soomaaliya ka tirsaneen. wuxuu sheegay in dadkan qorqor sanad waxbaa loogu darayaa. lafta gareen waa loogu daray. Axmed Madoobe waa loogu daray. Guudlaaw waa loogu daray. waxaana leeyahay sanadaha annaga dhan aan isku darsanno hal marna dalka doorashaha ka dhacdo iyadoo halkaas lagu hilmaamayo Puntland. barilaan ku dhashay caqliga nagala gadayo annaga 2023 uu raba xasan sheekh inuu ka gado dadka. waxaad u malaysaa xasan sheekh dadku u sheekeynay inay yihiin dad hurdo dadku inay soo joodaan oo indha ay leeyihiin maba u malaysid.